bismillaahi raxmaani raxiim wacanoo wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan maraca show waa 10 bisha juun sanadka 2026 waa maalin arbaco ah inta ugu badanna qaybtan waxaan ku eegi doonaa saldhigyada la beegsaday saacadii ugu dambeeyey fariinta ay dowladda Iiraan ay u dirtay dowladaha qaliijka oo ay tiri adinka ayaa mas'uul ka ah waxa idinku dhacaya dagaalkana mar hore ayaa soo gabagabeyn karteen waxa sidoo kale aan eegi doonaa qoraalada kala duwan ee ka soo baxa mas'uuliyiinta dowladda Iiraan xuutiyiinta dalka Yemen iyo dhanka Israa'iil oo doonaysa inay dib u bilowdo dagaalka marinka Gaza wararkii ugu dambeeyay wada hadallada iyo qodobo kale ayaa raaci doona soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale maraca show barnaamijka falanqaynta caalamka ma doonaysaa sidan oo kale in waalidka looga cumreeyo halkan waxaa uga cumraynayaa aabbo cabdi nuur cismaan oo ii soo wakiilatay gabadhiisa shirkad la hubo oo aan damiin ka nahay almahdiyiin la xiriir telefoonka shaashada kaaga muuqdo mar kale isku soo noqod wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal waxaan ku hormarayaa macluumaadka ku saabsan dowladda Iiraan ayaa weeraro ballaaran oo loo adeegsaday gantaallo iyo diyaarado aan duuliyo lahayn waxay ku qaaday saldhigyo ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin bariga dhexe waxna dowladda Iiraan ay ka jawaabaysay duqeyn Mareykanka xalay uu ka fuliyay qaybo badan oo kamid ah koonfurta dalkaasi Iiraan Mareykanka koonfurta Iiraan waxbuu ku arkay wuxuu inta badan doonayaa inuu beegsado goob kasta oo uu arkayo inuu ka curyaamin karayo la socodka dowladda Iiraan ee dhaqdhaqaaqyada marinka Hormuz garoomo diyaaradeed xarumo isgaarsiin ayaana ugu badan goobaha la beegsanayo bayaan ka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa lagu sheegay waa barigi maanta inay beegsadeen saldhig ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin Bahrain, Kuwait iyo sidoo kale saldhigga lagu magacaabo Al-Azraq oo ku yaala gudaha dalka Jordan. Iiraan marka weeraradii ugu dambeeyay Mareykanka ayay sheegtay si weyn inay kaga carootay waxaana ay fariin digniin u dirtay xukuumadda Washington oo waxay tiri haddii weerarada ay sii socdaan jawaabo adag ayaad la kulmi doontaan. Ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ayaa sidoo kale sheegay inay burburiyeen 21 bartilmaameed oo ay ku jiraan saldhigyada ciidamada badda iyo kuwa cirka ee Mareykanka uu ku leeyahay dalalka qaliijka wakaaladda wararka ee Faris ayaa intaa ku dartay in weerarka saldhigga Al-Azraq ee dalka Jordan uu sababay burburka 4 goobood oo ay ku jiraan hangaro ama qaybta lagu kaydiyo diyaaradaha dagaalka gaar ahaan diyaaradda F-35 haddii markii goobtii la dhigayay diyaaradaasi waxyeello ay soo gaartay ma waxay ka dhigan tahay diyaaradda F-35 dowladda Iiraan inay waxyeello gaarsiisay waa waxyaabaha la isweydiinayo faahfaahin lagama hayo laakiin macluumaadkan oo kale ama weerarka dhacay maanta oo kale faahfaahintiisa mar walba dib ayay ka soo baxdaa marka dowladda Kuwait waxay soo saartay qoraal ay ku leedahay dhowr gantaal iyo diyaarado drones ayaana lagu soo weeraray dhammaan diyaaradahaasi gantaaladana waan soo ridnay wargeyska Financial Times oo soo xiganaya mas'uuliyiin Amerikaanana waxa uu sheegay in saldhigga ciidamada Mareykanka ee dalka Jordan waxyeello inaanay soo gaarin waxa la isweydiinayaa marka maxaa saldhigga Jordan oo kaliya loo cadeynayaa inaanay waxyeello soo gaarin maxaana looga hadlin saldhigyada kale ee Mareykanka ee ku lahaa Bahrain iyo sidoo kale Kuwait labada dowladood ee Bahrain iyo Kuwait hore ayay weerar kala duwan ay ula kulmeen mas'uuliyiinta Mareykanka waxay leeyihiin ilaa ay hadda ma hayna cadeymo muujinaya in Iiraan ay si guul ah u garaacday bartilmaameedyadii ay beegsatay mana jirto dhimasho iyo dhaawac ciidamada Mareykanka soo gaartay kadib weeraradaasi wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan ayaa sheegtay in ciidankooda qalabka sida ay beegsadeen saldhigyadii laga soo qaaday weeraradii ugu dambeeyay waxay dalalka gobolka ugu baaqeen inay iyaga ay qaadaan mas'uuliyadda ah in dhulkooda la isticmaalayo iyagana ay sabab u yihiin dagaalka inuu sii socdo iyo in iyaga la beegsadaba qoraalkan wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ka soo baxay ayaa sidaa lagu sheegay waxaana lagu yiri dowladaha gobolka ee qaliijka kuna yaala gacanka qaliijka waa inay qaataan mas'uuliyadda ah in la joojiyo Mareykanka inuu isticmaalo dhulkooda lagana soo qaado weerarada gudaha dalka Iiraan laga fulinayo Mareykanka ayaa lagu eedeeyay inuu fuliyo weeraradii ugu dambeeyay isagoo marmarsiyo ka dhigtay in dowladda Iiraan ay soo riday diyaaradda Apache lagu magacaabo diyaaradaas oo agaarka marinka Hormuz ku soo dhacday inkastoo Tehran dhacdadaasi si rasmi ah ay u beenisay seeriga digniinta ayaa laga maqlay maanta sidoo kale gudaha dalka Bahrain mar kale sida la sheegay kadib markii dowladda Iiraan halkaas ay beegsatay iyada oo Centicom ay sheegeen inay koonfurta Iiraan ay ka fuliyeen weeraro aargudasho ah iyaga oo uga aargudaya soo riditaankii diyaaradda lagu magacaabo ama diyaaradda helikobtarka ah
ee nooca Apache. wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan waxay dhahdeen maya, marmarsiyadaasi wax soconaya maahan, annaga diyaaradaasi ma aanan soo ridin. Maraykanka ayaa doonaya inuu marmarsiyo ka dhigto. dhinaca kale, wargeyska iyo dacood Axranoth lagu magacaabo ayaa baahinaya in dowladda Iiraan ay saaxiibadeeda Xuutiyiinta Yemen ay la hadashay, Xuutiyiinta dalka Yemenna ay ka digayaan khatarta dagaalka in dib loogu laabto iyo inuu ku baaho guud ahaan dhanka gobolka. Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa dhowaan soo saaray amar ay ku mamnuucayaan in maraakiibta Israel u socda iyo kuwa ka yimidba ay adeegsadaan biyaha badda cas. Iiraan marka waxa lagu warramaya iyadoo ila wareedyo kala duwan laga soo xiganayo inay xiriir la samaysay Xuutiyiinta dalka Yemen. afhayeenka baarlamaanka ee dowladda Iiraanna waxa uu yiri Iiraan waxay haysataa dooqyo kala duwan, dooqaas oo dhanka diblomaasiyadda haddii la isku fahmi waayo dhinaca kalena ay ula xisaabtami karayso Maraykanka iyo sidoo kale Israel. sidoo kalena Cabbaas Caraqji, wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan, ayaa waxa uu sheegay in haddii Iiraan wax yar oo fallaara haddii lagu soo tuuro, iyagana fallaara ay tuuri doonaan. Weerarka lagu soo qaada mid la mid ah inay mar walba iyaga ay fulin doonaan oo jawaabna ay ka bixin doonaan oo aysan ka aamusi doonin wax kasta oo dhaca. waan arki doonaa dhammaan arrimahan waxyaabaha ka soo kordha. khasaare lama diiwaangelin labada dhinac, mid walbana waxaad moodaa inuu xogta rasmiga qarinayo, laakiin mar walba macluumaadka way soo kordhi doonaan, waana kula wadaagayaa insha Allah. macluumaad dheeraad oo soo baxaya ayaa sheegaya in xaaladda magaalada Gaza mar kale inay wajahday khatar dagaal oo cusub, iyadoo Israa'iil ay diyaarinayso qorshe militari oo ballaaran oo ay doonayso mar kale inay weerar ay kaga fuliso gudaha marinka Gaza, halka dhinaca kalena ay socdaan dadaalla diblomaasiyadeed oo la doonayo in lagu xoojiyo xabajoojinta magaalada Gaza. sida wargeyska Haaretz oo Israa'iil ka soo baxa uu daawacay iyo telefishinka Al Jazeera, taliyaha guud ee ciidamada Israa'iil Eyal Zamir ayaa waxa uu ansixiyey qorshe howlgal ciidan ah oo cusub oo sida la sheegay laga fulinayo magaalada Gaza. qorshahan waxaa soo bandhigay taliyaha taliska koonfureed ee ciidamada Israa'iil Yanif Asor, kaas oo sida la sheegay soo bandhigay inaysan jirin cid caalami oo diyaar u ah in awood u yeelato in hubka ay ka dhigto xoogagga iska caabinta. sidaa daraaddeedna waxuu sheegay Israa'iil in iyada mustaqbalka ay ku qasbanaan doonto weerar cusub oo ballaaran, waxaana lagu warramayaa hadda in loo tafaxiidanayo sidii dagaalka magaalada Gaza dib loogu bilaabi lahaa, iyadoo Israa'iil ay doonayso inay tiraahdo annaga ayaa hubka ka dhigayna xoogagga iska caabinta ama ku qasbi doona. warbixinada dhanka amniga waxay sheegayaan in xoogagga iska caabinta bilihii lasoo dhaafay ee dib ay u dhiseen qayb muhiim ah oo ka mid ah awooddooda dhanka militariga, oo ay ku jiraan shabakadaha godadka dhulka hoostiisa mara, xarumaha taliska iyo nidaamyada hoggaanka. ciidanka Israa'iil ayaa sidoo kale waxa ay rumaysan yihiin in dhaqdhaqaaqa xoogagga iska caabinta ay sii kordhiyeen marka la eego qaybo badan oo ka mid ah gudaha magaalada Gaza, iyadoo Israa'iil ay gacanta ay ku hayso 60% dhulka magaalada Gaza. si kastaba, Israa'iil si rasmi ah uma aysan ansixin qorshaha ballaaran ee dagaalka, inkastoo ra'iisul wasaare Netanyahu ku cadaadiyey hay-adaha amniga in ay dedejiyaan diyaargarowga dagaalka dib loogu laabanayo. Netanyahu ayaa doonaya in dagaalka dib loogu laabto, isaga oo u arka fursadda keliya ay haystaan waqti xaadirkan inay tahay inay ka faa'iidaystaan sidii ay uga cadaadin lahayn xoogagga iska caabinta in hubka ay dhigaan. magaalada Qaahiro waxaa ka soconaya wadahadallo u dhexeeya Falastiiniyiinta iyo dhexdhexaadiyaasha Masar, Qatar iyo sidoo kale Turkiga. afhayeenka xoogagga iska caabinta ayaa sheegay in dhammaan dhinacyadu ay si wanaagsan ay kaga jawaabeen soo jeedimaha lagu doonayo in lagu sii xoojiyo heshiiska xabajoojinta iyo in la dejiyo qaabka maamul ee magaalada Gaza. sidaa ay sheegeen ilaha ku dhow wadahadallada, waxaa horumar laga gaaray inta badan qodobadii miiska saarnaa, waxaana dhinacyadu ay gaareen isfaham hordhaca oo ku saabsan maamulka magaalada Gaza, arrimaha amniga. hase yeeshee arrinta hubka dhigidda ayaa qodobka ugu adag ee aanan weli la isku fahmin. wararku waxay tilmaamayaan in kooxaha Falastiiniyiinta ay aqbaleen mabda'a ah in hubka lagu koobo hay-ad Falastiini ah oo si wada jir ah loogu heshiiyey, laakiin Israa'iil waxay ku adkaysanaysaa in dhammaan hubkaas ay la wareegaan ciidanka caalamiga ee la qorsheynayo in la geeyo magaalada Gaza, kuwaas oo qayb ka ah qorshe hore uu soo bandhigay madaxweyne Trump. bishii hore, ergeyga caalamiga ah ee magaalada Gaza Nikolai Maladinov ayaa soo bandhigay qorshe ka kooban 15 qodob oo lagu hirgelinayo heshiiska joojinta dagaalka, waxaana ka mid ah in la xadido ama la baabi'iyo hubka ay haystaan xoogagga iska caabinta ee Xamaas iyo kooxaha kale ee iska caabinta. ila ku dhow wadahadalladan ayaa sidoo kale sheegay in qodobada badankood la isku afgartay, balse hubka weli uu yahay caqabadda ugu weyn. haddii xal laga gaaro qodobkanna waxaa suuragal noqon karta in xabajoojinta la sii adkeeyo, haddii kale waxaa jirta cabsi ah in Israa'iil ay dib ugu laabato dagaalka ballaaran sida Israa'iiliyiintaba ay qorsheynayaan.
siday sheegeen maamulka magaalada Gaza tan iyo markii xabajoojinta ay dhaqan gashay bishii Oktoobar 2025. duqeymaha iyo dhacdooyinka Israa'iil ee fulisa ayaa sababay dhimashada 985 ruux iyo dhaawaca 396 kale. dagaalka magaalada Gaza ee socday muddada 2 sano ku dhow ayaa sababay khasaare aad u weyn oo naf iyo maalba leh. inta badanna kaabayaasha dhaqaalaha iyo adeegyada magaalada Gaza gabi ahaanba waa ay burbureen. waan arki doonaa arrintan waxyaabaha ka soo kordha barnaamijyadeena kale ayaanu kugula wadaagaya insha Allah. warbixintan waxay muujinaysaa xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo sidoo kale dowladda Iiraan mar kale inay gasho marxalad adag. inkastoo labada dhinac ay sheegeen wadahadaladii dhanka nabadda iyo heshiiska lagu soo afjaray dagaalka weli inay socdaan, waxaa muuqanaysa Washington inay isku mar adeegsanayso laba siyaabood oo cadaadis militari qayb ay ka yihiin iyo dhiirigelinta diblomaasiyadda si loogu qanciyo Iiraan inay aqbasho heshiis kama dambaysa. dhibaatadu waxay bilaabatay kadib markii diyaarad dagaal oo nooca Abaja lagu magacaabo oo Mareykanku leeyahay ku burburtay marinka Hormuz. saraakiil Amerikaan ayaa sheegay in diyaaraddaas ay ku dhacday diyaarad aan duuliye lahayn oo Iiraan laga leeyahay. inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin isku dhacaasi, haddana dowladda Iiraan gabi ahaanba waa ay beenisay. taasina waxay keentay Mareykanka in uu dhacdadaasi yiraahdo waan ka jawaabaynaa, isagoo beegsaday saldhigyo militari oo ku yaala gudaha dalkaasi Iiraan. Mareykanka waxa uu sheegay inay beegsadeen nidaamyada difaaca cirka, raadaarada iyo xarumaha laga haga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee hareeraha marinka Hormuz. dhanka kalena dowladda Iiraan waxay sheegtay in weeraradaasi ay gaareen saldhigyo ciidan iyo kuwo badeed oo ku yaala magaalada Sirig lagu magacaabo Jaaski iyo Bandar Cabbaas iyo jasiiradda kale ee Qishim, halkaasoo yaala nidaamyo difaac iyo gantaalo. maamulka madaxweyne Trump wuxuu ku dooday in weeraradaas ay ahaayeen kuwo xadidan oo taxadar leh sida ay sheegeen, laakiin Iiraan arrintaasi way ka jawaabtay oo waxay beegsatay saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Khaliijka. Iiraan dhankeeda wadahadalada ayay wadaa, haddana marka la eego dhacdooyinkii ugu dambeeyay waxaa laga baqayaa inay sababaan in xaaladdu mar kale istaagto dagaalkana dib loogu laabto, maadaama sida aad arki karayso ay u muuqato ul iyo karooto, yacni xaalad adag iyo haddana xaalad jilcan. dhinaca kalena wadahadalada diblomaasiyadeed ayaa weli soconaya. mas-uuliyiinta ugu sarreeya dowladda Bakistaanna waxay sheegeen dadaalo diblomaasiyadeed inay wadaan. sidaas oo kale dowladaha Khaliijka oo Qatar ay ugu horeyso ayaa dadaalada qayb ka ah, Sacuudiga, Turkiga iyo sidoo kale Masar. dhinaca kalena dowladda Afghanistan ayaa ku dhawaaqday Arbacada maanta 13 ruux inay dhinteen, 14 kalena dhaawacay inay soo gaareen kadib markii sida la sheegay duqeyn laga fuliyay deegaanada dhinaca xadka ee bariga ee dhaca xadka ay wadaagaan Afghanistan iyo Pakistan. mas-uuliyiinta dowladda Afghanistan ayaa shaaca ka qaaday in weerarkaasi baaritaano lagu hayo. diyaarad Pakistan laga leeyahay ayaa lagu waramayaa inay duqeyntaasi ay fulisay, sida uu sheegay Sabiixullah Mujaahid, afhayeen u hadlay dowladda Afghanistan. waxa uu sheegay weerarkaasi inuu ka dhacay magaalada Qosta lagu magacaabo iyo gobolka Paktika, waxaana la xaqiijiyey in dhismayaal dad shacab ay deganaayeen in gebi ahaan la burburiyey. 11 caruur ay ka mid ahaayeen dadka dhaawacyada kala duwan iyo dhimashadaba ay soo gaartay. mas-uuliyiinta dowladda Afghanistan ayaa sidoo kale sheegay in caruur aad u yaryar ay ka mid ahaayeen dadka la beegsaday. dowladda Pakistan ay ka dambeysay baaritaanana ay socdaan. wax walba oo ka soo kordha waan kula wadaagaya insha Allah. ugu dambeyntii, madaxweynaha dowladda Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ka dalbaday wadamada qaaradda Yurub inay si rasmi ah ay ugu lug yeeshaan sidii dagaalka loo soo gabagabayn lahaa. haddii markii hore uu ka dalbanayo dowladahan hub iyo waxyaabaha la midka inay ku taageeraan, hadda waxa uu taagan yahay waa inay reer Yurub ay qayb weyn ay ka ciyaaraan sidii dagaalka loo soo gabagabayn lahaa, maadaama dagaalkan sanado badan uu ka soconayo gudaha dalka Ukraine. marka laga hadlayo diyaaradaha dagaalka ee jiilka shanaad ee J-20 oo Shiinaha uu soo saaro, maanta waxay noqdeen mid ka mid ah diyaaradaha ugu awoodda badan dunida uguna casrisan, aadna loo baadigoobayo. inkastoo diyaarado kale oo ka sarreeya kana casrisan oo Shiinaha uu soo saaray, Beijing weli ay diidan tahay inay u dhoofiso dalal kale. haddana waxaa sii kordhaya doodaha ku saabsan in mustaqbalka dhow iyo kan dhexaba diyaaradan J-20 suuqa caalamiga in la geyn doono, gaar ahaan marka Shiinaha si buuxda u howlgeliyo diyaaradaha jiilka shanaad. dhanka militariga marka la eego, J-20 ma ahan oo kaliya diyaarad dagaal, balse waa aalad loogu talagalay si qoto dheer inay u jebiso difaacyada cadowga, ugaarsato diyaaradaha taageerada siinaya diyaaradaha dagaalka sida AWACS iyo kuwa shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha kale, isla markaana ay xukunto ama ay maamusho masaafada hawo aad uga fog. taasi waa sababta ay ciidanka cirka ee dunida si dhow ula socdaan mustaqbalka diyaaradan, dowlado badanna ay u daneynayaan.
haddii shiina uu go'aansado inuu bedelo siyaasaddiisa dhoofinta, algeria waxay u muuqataa musharaxa ugu horeeya ee doonaya inuu helo diyaaradda dagaal ee J-20. ciidanka cirka ee algeria waa mid ka mid ah kuwa afrika ugu awooda badan. muddo dheer waxay ku tiirsanaayeen diyaaradaha culus ee ruushka uu soo saaro sida Su-30 MKA iyo Su-24 MK2. intaa waxaa dheer, xiriirka militari algeria iyo shiinaha aad ayuu u wanaagsan yahay, waxaana uu sii xoogaystay sanadihii lasoo dhaafay. marka la eego dhinaca howlgalka, diyaaraddan waxay siin karaysaa ciidamada cirka ee dowladda algeria awood ay kula tartamaan ama ay kaga sarreyn karayaan diyaaradaha kale iyo hubka ay isticmaalaan ciidamada cirka ee gobollada waqooyiga afrika dhaca iyo xitaa kuwa mediterranean-ka galbeed ku yaala. sacuudiga waa dalka labaad ee u sharaxan ugu yaraan inuu helo diyaaradaha casriga ee dowladda shiinaha. xiriirka shiinaha iyo sidoo kale dowladda sacuudiga aad ayuu u xoogaystay sanadihii ugu dambeeyey. ciidanka cirka ee boqortooyada sacuudiga waxay ku tiirsan yihiin diyaaradda dagaal ee F-15 oo lafdhabar u ah awoodda dhanka hawada. si kastaba ahaatee, helitaanka diyaaraddan ama diyaaradaha reer galbeedka ee jiilka shanaad waa mid aad u adag haddana xadidan. riyaadna waxay u jeesan kartaa xal kale inay raadiso, waana sababta keenaysa in shiinaha lagu tirin karayo in sacuudiga ay ka iibiyaan diyaaraddan. xiriirka dhaqaale iyo kan istiraatiijiyadeed ee sii kobcaya ee sacuudiga iyo shiinaha sidoo kale waxa uu kordhin karayaa suuragalnimada in dhanka militarigana ay iska taageeraan, dhaqaalo badanna sacuudiga laga helo si diyaaradahan looga iibiyo. sacuudiga waxaa jira qorshe uu hiigsanayo 2030, waxaana ay doonayaan inay gacanta ku dhigaan diyaarado casri ah, ciidanka la qalabeeyo, lagana guuro ku tiirsanaanta shidaalka, loona guuro ilo kale oo dhaqaale. J-20 ama J-35 oo shiinaha uu doonayo inuu soo saarana waa waxyaabaha qiimeynta ugu jira oo ay baadigoobayaan sacuudiga. dalka saddexaad waa imaaraadka. isagana wuxuu ka mid yahay dalalka sida dhow ula socda horumarka tiknoolajiyadeed ee militariga shiinaha. inkastoo dalkan saaxiib dhow uu leeyahay dalka Mareykanka, haddana Abu Dhabi waxaa loo arkaa inay muujinayso inay diyaar u tahay isticmaalka qalabka militari iyo tiknoolajiyadda shiinaha. ku darso oo dhammaan dowladahan, si gaar ahaaneed sacuudiga, imaaraadka carabta iyo kuwa qaliijka, Mareykanka waxa uu ka ilaaliyaa xitaa tiknoolajiyadda shiinaha inay gaarto ama ugu yaraan shiinaha inuu xog ka helo tiknoolajiyadda hubka la isticmaali jiray sanado hore oo ay dowladahan weli ay haystaan, maadaama diyaaradaha casriga ee Mareykanka aan weli laga iibin. waxaa kaloo ay tartan ugu jiraan inay helaan hubka Turkiga uu soo saaro, iyagoo oo sidoo kale ka fakaraya lacagtooda inay u isticmaalaan in warshado hub laga sameeyo dalalkooda si ugu sahlanaato helitaanka hub casri ah. tusaale yar aan kula wadaago, iibsiga diyaaradaha ee tababarka ah ee L-15 iyo iskaashiga dhinaca isgaarsiinta ee u dhexeeya imaaraadka iyo shiinaha waa waxyaabaha keeni karaya inay helaan noocyada kala duwan ee hubka shiinaha uu soo saaro. haddii caqabadaha la xiriira helitaanka diyaaradda F-35 ay sii socdaan oo diyaaradahan loo diido dowladaha qaliijka oo lacagna haysta, J-20 waxay noqon kartaa beddelka soo jiidashada leh ee siin karta imaaraadka carabta iyo dowladaha qaliijka awood dhanka hawada ah oo aad u sarreysa. laakiin miyay isku wadi doonaan dalalkan, mise tooda ayay eegan doonaan? awoodda farsamo haddii aan eegno ee diyaaraddan J-20 waxaa loogu talagalay inay qabato howlo aad u adag marka dagaalka hawada lagu jiro. xawaaraheedu waxa uu gaaraa ku dhowaad 2.1 maaj, taasoo ka dhigan dhawaaqa codka 2 jeer inay ka dheerayso. awooddeeda duulimaadka dheer waxay u saamaxaysaa inay ka shaqayso masaafooyinka aad uga fofog saldhigyada. raadaarka AESA oo ay isticmaashana iyo gantaalkeeda BL-15 ee masaafada dheer wuxuu siinayaa awood ay ku weerarto bartilmaameedyo aad u sarreeya kana horeysa weliba diyaaradaha kale ee gobolka. sidoo kale naqshadeeda ka dhuumashada raadaarka waxay hoos u dhigaysaa fursadaha lagu ogaan karayo, taas oo ka dhigaysa khatar weyn oo ka dhanax ciidamada difaaca hawada iyo diyaaradaha dagaal ee jiilalkii hore. laakiin ogow, dowladii hubka ay soo saarto hore kama iibiso ilaa kuwa kale oo ka casrisan ay gacanta ay ku dhigto. waxaa kaloo sahlanaanaysa in lala socdo halka aad u isticmaalaysa diyaaradahan, waana sababta inta ugu badan dalalka reer galbeedka hubka laga iibsada aan loogu isticmaalin dagaallo ay iyaga ka soo horjeedaan. aragtidaada nala wadaag, like sar muuqaalka, la wadaag saaxiibadaada, waad mahadsan tahay.